kulankani oo ay maanta isugu yimaadeen waxgarad iyo duubabka dhaqanka Soomaaliyeed oo ay ku dalbadeen in xabsiga laga sii daayo nabadoon Maxamed Axmed Maxamed Aakhiro oo u xiran xukuumadda Soomaaliland isla markaana xabsiga ku jiro muddo 3 bilood waxaana kulankani ka soo qayb galay nabadoonno iyo odayaasha dhaqanka midnimada beelaha Hawiye idoona kulanka ay ka jeediyeen codsiyo ku aadan in xabsiga laga sii daayo ganacsade nabadoon Maxamed Axmed Maxamed Aakhiro oo dhawaan ciidamada Soomaaliland ay xabsiga dhigeen kuwashan waxaan u dhignay arrimo jira oo nin ku xiran Hargeysa Soomaaliland dawladda Soomaaliland ninkaas oo la yiraahdo Maxamed Axmed Maxamed Aakhiro lagu magacaabo oo ganacsade ah oo hadii la yiraahdo nabadoon ahaa shirka waa codsi waa cabasho dabcan ala kama marra waxaan rabnaa walaalin Soomaaliland sida hore loo yiri waxaan ka codsanaynaa nabadoonkaas la yiraahdo magaciisa Maxamed Axmed Maxamuud Maxamed Aakhiro inay sii daayaan inoo soo daayaan an ka codsanaynaa si ballaaran oo gambad lahayn annagoo ah beelaha Hawiye ee walaalahooda ee la dhashay dhaqan iyo dhaqaalana naga dhaxeeyaan dadku naga dhaxeeyo xagga iyo xaggaba ay joogaan qaasiyatan madaxweyne Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxaan ka codsanaynaa ninka inanka oo soo dhaweeya wax allaale wixii koonfur ka yimaada la tacaamula haday nabad wadaan iyo haday wanaag wadaan intaba idinku soo dhaweeya gacan idkaga ah walaalkiin ah Maxamed Maxamuud in aad si naxariis leh oo sharafi ku jirto ciise ku jirto aad u sii deydaan dambeyn kulanka odayaasha dhaqanka midnimada beelaha Hawiye ayaa laga soo saaray warmurtiyeed ku aadan xariga nabadoon Maxamed Axmed Maxamed Aakhiro waxaana warmurtiyeedkaasi warbaahinta u aqriyay Ustaad Burhaan Axmed Maxamed Farabuur 3 bisha Abriil 2017 warmurtiyeed cabasho ku socota maamulka Soomaaliland dawlad ahaan shacab ahaan golahooda wakiilada golaha guurtiga dhammaan waxaa ku xiran magaalada Hargeysa muddo ku dhow 3 bilood laga soo bilaabo 17 bishii koobaad ee January ama Janaayo qofba soo u yaqaano 2017 ilaa maanta oo aan taaganahay 3 bisha afraad 2017 nabadoon caan ah ganacsade nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Maxamed Axmed Maxamed oo ku magac dheer Maxamed Aakhiro haddaba golaha dhaqanka iyo midnimada beelaha Hawiye wuxuu soo jeedinayaa warmurtiyeedkan waxaan u mahadcelinaynaa maamulka Soomaaliland iyo shacabkooda labadaba martidii ay u fidiyeen dadka Soomaaliyeed laga soo bilaabo 19 ilaa maantay oo ay harsanayaan nabadooda kuna dhex ganacsanayaan qodobka labaad waxaan soo jeedinaynaa in si shuruud la'aan ah ay u soo daayaan nabadoon ganacsade Maxamed Axmed Maxamed Aakhiro Cabduqaadir Maxamed Cabdullaahi Qoslaaye Star TV Muqdisho